السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعن أو وناكسن إذا لهانتين باقيارتي قيمة هي شرفت مدن وحنو هود إذن كلانهاي رمضان كريم وحنو سو قادني برنامج كيني أينو كجهل لجرني سوقان تيا هالعبوركا تضبط كان برنامج كان وحنو كو إيجي دونا هالعبوركا سوقان تيا ولي بمركزي إن أمرتي إنه جوية هاي إن أبوان محمد خليف إبراهيم أو كم قعدير حراش كل مركيدو مقع أبوان كما قشان وحيدون فليسان مقع أبوان قف ليراهدو وقف رناهانتي مركا سدينو قياس إنه داوين لكن وويل دلنيراء وآدو دلنيراء isla markaasina abwaan ah aqoon-yahan ah oo markaasi dhinac walba ka dhisan baa la oran karaa abwaan waan kaaga mahad celinayaa fursadda iyo waqtigaada siisay Ramadaan Kariim baan ku leeyahay runaantii abwaan Xarash bal waxaan jeclaan lahaa inaad aniga iyo waliba daawadayaasha sida tooska ugu taxan TV-ga caalamiga ee Soomaalida Itoobiya aad bal iskaaga barto taariikh nololeedkaagii iyo waliba sooyaalkii noloshaada abwaannimada halka aad ka soo gashay iyo waliba bal halkaasaan jeclaan lahaa inaad warbixin naga siiso aad iyo aad baad mahadsantahay haboon uga soo daar haddaan ku bilaabo marka hore magacayga adaa sheegay haddaan ku bilaabo taariikh nololeedkayga waxaan ku dhashay degmada la yiraahdo Sagag gobolka Nogob qiyaastii 1992 waxaan iskuulka hoose dhexe ku soo qaatay degmadaasi iyo dugsiga Quraanka kadib 2009 waxaan u soo gudbay dugsiga sare ee Shacab Salaan magaalada Jigjiga halkaas aan ku qaatay dugsiga sare ee Shacab Salaan fasalka 9aad iyo fasalka 10aad kadib waxaan u soo gudbay iskuulka la yiraahdo preparatory school ama Jigjiga high school oo lagu qaato diyaar garowga jaamacadaha halkaas aan maaragtay ku qaatay 2012 ilaa 2013 waxaan nasiib u helay inaan ka mid noqdo ardada nasiibka u heshay jaamacadaha dalka 33 jaamacadood ama xilligaas ay ahayd 33 jaamacadood oo baqtiya nasiib ku buuxinay inaan nasiib u helo jaamacad ku taala dhulkaygii gurigaygii halkii aan jiifay halkii aan joogay aan iskuul ku dhiganay alxamdulillah 3 sano kadib jaamacadina waxaan ku dhameystay gurigaygii halkaas aan ku qaatay oo aan ku qaatay shahaadada digriga cilmiga loo yaqaan maaragtay dhaqaalaha iyo ganacsiga laanta horumarinta ama laanta maamulka iyo arrimaha bulshada public administration loo yaqaan dhinaca suugaanta haddana ilaado suugaanta anigu yaraaman ku soo bilaabay oo maaragtay waxaan u ahaa maamo u lahaa hidaraac waxa loo yaqaan ehelkayga maaragtay yaa lahaa suugaanta aabahay hadday noqoto ehelkii kale walaaladii hadday noqdaan waxaan ahayn reer suugaaneed baan ahayn saas daraadeed baa aan maaragtay anoo yar u bilaabay xilligaas waxaan qiyaas ahaan da'dayda aan malaynaya in ahayd ilaa 13 sano markaan bilaabay suugaanta ilaa iyo haddana waa aan ku soo guda jiro waan soo wadnay marka xilligan la taagan yahayna de ma ahi qof aan is oran kara anoo ka raali gelinaya ama maaragtay daawadayaashiiba ka raali gelinaya magaca abwaan ay aad saartay aanu ma ahi qof abwaan ama qof abwaan maaragtay lagu tilmaami karo laakiin waxaan dhalinyarta jecel maaragtay suugaanta in ay hadii jeer ku dhex jiraan ama maaragtay xiisaayaan kamid ah oo kaliya taa haddaad hal abuurto wax oo maaragtay aad wax dadka u soo bandhigto laguma tilmaami kara abwaan waa kii macallinkeenii Cabdullaahi Macallin Cismaan Axmed Doodan lahaa alabuurka maansada ninka aad u garanayo mar hadii aftahan loo yaqaan ama abwaan sheegto wax if jira wax aakhira jiriyo waxaan la eegaynba waa inuu ogaadaa sida uu ku baalahay tiina anigu ma isaas daraadeed aad baan uga raali gelinayaa daawadayaasha aad baad mahadsantahay waa kaaga mahad celinayaa bal Maxamed Khaliif Ibraahin waxaan jeclaan lahaa waxaad ku jirtaa naadiga ururka hal abuurka naadiga PEN baad ku jirtaa bal marka iga waran naadiga iyo waliba marxaladiisa iyo waxaad ka tahay maxubin mise maxaad ka tahay bal naadiyo waxaa jira kala duwan oo aan ka mid ahay anigu naadiyadaas oo ka jira maaragtay mid waxa uu ka jira geyga Soomaaliyeed shanta Soomaalidu ay degto dhulka loo yaqaan waxa la yiraahdaa akademi goboleedka afka Soomaaliga oo de naadi ahaan baan u hoos tagnaa naadiga naga laakiin anagu aan leenahay dhalinyaro ahaan waxa la yiraahdaa naadiga horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga waxa uu ka jira jaamacadda G University macadka daraasaadka Soomaaliga ee suugaanta hoos yimaada waxaan ka hay gudoomiyaha suugaanta iyo hal abuurka iyo qoraagan ka ah
naadigaasi waa naadi iskiisa dhalinyaro yaryar oo maaragtay cidi ayna taakulaynin cidi ayna maaragtay kusoo guwaabin cidi ayna maaragtay ku gacan qaban iskood intii isku soo abaabuleen ay u istaageen sidee baan ugu helnaa afkeena hooyo oo aan uga helnaa maaragtay dib u dhaca ku jira sida guddiga luqadaha caalamku ay sheegeen sanadada soo socda luqadda Soomaaliga waxay noqon doontaa luqadaha tirtirmi doona sidaan uga hortagno dhalinyartuna xilligan wacyigan lagu jiro ay tahay mid la jaan qaada ama maaragtay ku salaysan marxaladahan casriga ah ee dunidan xawaaraha casriga ku socota oo ay iska dhigatirto mar walba maaragtay dhaqankii afkiiba sideeban hadaba inagu aan fahan uga siinaaban u asaasnay oo u sameeynay runtiina intii yarayda uu jiray 3 sano oo aan anigu joogay oo kamid ahaa waxyaalo la waaweyn oo la taaban karo qabtay oo maaragtay ay ku soo kordhinay ama hadii noqoto afka Soomaaliga eray bixin hadii noqoto xataa maaragtay hadii noqoto hal abuur la soo saaro da'yar dhalinyartu inay ku soo hirato maaragtay ay ku soo hirtaan afkoodii iyo dhaqankoodii iyo suugaantii inay ku soo hirtaan iyadana maaragtay waxa ay ku soo kordhin waxyaabo fara badan bal waxyaabaha aad soo kordhiseen ururkiinan isla markaasina la oran karo waa waxyaabo hirgale maxaa kamid ah oo aad ku soo kordhiseen dhalinyarada iyo shacabkaba waxyaabaha hirgale ee maaragtay aan ku soo kordhinay waxa kamid ah xilli hore ma aysan jirin dadka dhalinyarada in ay maaragtay inta ay isu yimaadaan ay isweydaarsadaan war maxaa maaragtay wax ku saabsan ama maaragtay ku haboon afkooda iyo dhaqankooda si dabargo'aya ma aysan jirin laakiin anagu intaan soo abaabulnay dhalinyaro waanu maaragtay 1 iyo 2 iyo 3 soo abaabulnay dad dhalinyaro oo maaragtay ka hurda dhaqankii afka Soomaaliga waxaanu ka siinay fahan fara badan waxaanu soo saarnay abwaaninta yaryar maaragtay suugaanyahan daayiraan dhaada ama hal abuur daayir aan dhaade waanu soo saarnay oo fara badan oo maaragtay hadda ku kala faafsan magaalada iyo maaragtay deegaanka Soomaalida Itoobiya hadday noqoto dhinaca qoraalka ama qoraalka qoraanimada buugaag badan oo qornay baa jirta hadday noqoto mid la yiraahdo buug la yiraahdo waxaan qornay baa jira sibgintirka af Soomaaliga buug la yiraahdo oo sida uu ogtayba qoraalka af Soomaaliga waa kala dhimay qoraalka af Soomaaliga uu kala dhimay waxyaabo badan baa ka dhiman waxyaabaha ka dhiman xilligii guddiga luqadaha 1972 xukuumadda militariga Soomaaliya ay maaragtay diyaarisay waxa jira waxyaabo ay dantu u saamix weeyday ka tageen isla markaana isla qaatay in maaragtay la qoro ama maaragtay xilliga iyada lagu daro oo laga fursan waayo laakiin inay laga tago taas waxa kamid ahaa qoraalada noocaas oo kale qofka ajnabiga ee luqadda afka Soomaaliga baranaya haddaad u dhiibto qoraal af Soomaaliya ilaa asoo qofkani qof u dhashay ma waa qof baranaya luqadda af Soomaaliya macdaan luqadda af Soomaaliga baranaya haddaad u dhiibto oo u dhigto inan aad u qorto ma kala saari karo qoraal ahaan isagu isku sibay u qormaan haddaad maaragtay dameer iyo dameer aad u qorto ma kala saari karo sidaas daraadeed sibgintirka af Soomaaliga buug leeyahay waan qornay buug kale leeyahay guusha waan qornay maaragtay buugaag fara badan ma qornay hadii leeyahay oo soo bandhigi doona hadii ay bidaan bal gabayadaada suugaanta iyo waliba nidaamkeeda suugaan maxaa loo yaqaanaa maxayse ka hadashaa suugaan marka la yiraahdo horta dad fara badan baa waxay ku macnayaal kala duwan oo fara badan dadka qaar waxay yiraahdaan suugaan horta suugaan ereyga suugaan hadii aan idhaano macnihiisa ereyga suugaan waxa loo yaqaanaa macnayo kala duwan oo fara badan laakiin tan khusaysa maanta hadaan ka hadalno suugaan raashinka marka la cunayo waa taqaanaa bariis oo kala hadaad karsato ama raashin aad karsato wuxuu kaaga baahan yahay inaad suugayso oo macaaniso ilaa aad suuga ku darto oo aad macaanisato kugu socon maayo cuntadii afkan Soomaaliguna sidaas oo kale wuxuu kaaga baahan yahay inaad suugayso yuu kaaga baahan yahay oo maaragtay aad macaanayso suugaantan marka waa wixii afka Soomaaliga macaaninayay mar macnaha saas la yiraahdaa maaragtay dadka baaris ku sameeya af Soomaaliga saas qaarkood yiraahdaan mar kale waxa la yiraahdaa maaragtay suugaamiddu waxa la yiraahdaa sasabida ama maaragtay wixii qalbigaaga ama maankaaga aad soo sabayso oo wax ka maaragtay ka soo dhiranayso taasna waa la yiraahdaa iyadana marka suugaan xilligan wixii ka horeeyay suugaan booskeeda waxa taagnaa wax la yiraahdaa maanso oo maansadu booskan suugaani hadda leedahay ayay taagnayd markii hore oo maanso waxa la oran jiray wax kasta oo maaragtay hal abuurka ay sameeyaan wax kasta oo hal abuurka ay sameeyaan oo maaragtay suugayaa ahaa maanso la oran jiray hadii noqoto garaarka gabayada jiiftada maaragtay halaan halka saarka iyo waxyaalaha la midka oo dhan aduu wixii suugaan maaragtay qaafiyad iyo xaraf raac u gaar leh yaa waxa la oran jiray maanso
maansadii markaa mid suugaantii ka mid ah oo bahda suugaanta ka mid ah qaadatay oo jiifta loo yaqaano ay markaa iyadu qaadato sigaar u qaadatay taasaa qaadatay oo kadib ka qaadatay booskeedina waxaa galay wax la yidhahdo suugaan baa gashay oo hadda suugaan waxaa loo yaqaanaa waxa la wixii tixa iyo suugaan loo yaqaanaa marka cilmi baadhis ahaan markaad samaysid ama aad aragtid nidaam cilmiyeysan aad ku raadisid oo nidaam cilmiyeysan u daba gashid suugaanta aad bay u fara badanaysaa macno fara badan bay yeelanaysaa oo ka bixi maysid maaragtay qofku xataa inuu ku wareero iyo u dhowaanaya way kala baxbaxdaa suugaanta dadkeena Soomaalidu waxa laga yaabaa inuu qof hal abuur ah oo ma gabya ah oo gabi jiray kaliya ta intuu yimaado in yiraahdo ninkaas waa abwaan laakiin haddaad laba maaragtay maado oo suugaantu leedahay isu barbar dhigto inuu kala saari karin oo tiraahdo tani ma gabayba gabay isagu waa meeshiisa oo gaar buu isagu uga baxsan boqorka suugaanta leedahay tani ma maansa ama ma jiifta mise waa geeraar mise waa wax la mid ah haddaad tiraahdo inuu ku kala saari waayaa laga yaabaa marka cilmi baadhista ahaan anagu maaragtay macad ahaan ama naadi ahaan bugaag ay professor hore ay qoraan professor Gaariye professor Caraale way jiraan iyaguna oo saas oo kala oo dadka in aan hadda kadib rabno inaan faham ka siino ama aan u soo bandhigno diilaada marka suugaan waa sidaas waa hagaag aad baad u mahadsan tahay bal mid ka mid ah gabayadaadii marba haddii aad noo soo sharaxday suugaanta iyo nidaamkeeda aynu eegna bal mid ka mid ah gabayada aad ugu tala gashay in markaasi aad adigu curiso oo aad hal abuurto oo markaasi kamid ah gabayadii la oran karo hal abuurkana lahaa anigu inta badan waxaan ku jiraa naadi baan ku jiraa waan kamid ahay naadiguna marka waxa uu taagan yahay waa dhaqan iyo af Soomaali dhaqanka iyo af Soomaaliga magaciisa la yiraahdaa marka suugaantaydu dawlad deegaan ahaan wixii heesa ama maaragtay hees la duubo intii maaragtay drama loo tumo ama muusig loo garaaco la soo bandhigay waxay maaragtay waa dhinaceeda laakiin intayda badan suugaantaydu waxay ku saabsan tahay dhaqanka iyo Soomaaliga marka waxaan ku bilaabi lahaa hadda gabay la yiraahdo uubato maxaa la uubata ay ka macna tahay dadku way isweydiiyaan dad badan baa isweydiiyaan garanayeen magaca uubato ama ereyga uubato waxa weeye qayla dhaan waxaad qof aad ugu qayla dhaaminayso af Soomaaligii oo meesha ka sii baxaya loo qayla dhaaminaya oo la leeyahay af Soomaaligii meesha uu ka baxay waxaana ka saaraya luqada jinni oo baaso maaragtay ku soo biirayo hadda casri ah aaladahan casriga imika aad arkayso horteena tan maaragtay taala waa kaamirad maaragtay siday inoogu yimaadeen dadkii soo saaray inoogu keenan ma inagu ku qaadanay wax macno aan u sameynay ama eray bixin aan u sameynay ma jirto midna waa jirtaa kolal badan oo la isku dayay in eray bixin la sameeyo xilli jaamacadda University lagu soo xariiray rag badan oo abwaanina jiray oo kamid ah Cabdullaahi Macalin Cismaan Axmed Wadaan oo maaragtay eray bixin badan la sameeyay laakiin dhaqan gelintii baa ka maqan meesha waxa weeye in la dhaqan geliyo fiican laakiin in la sameeyo ama la hindisay wax macno keenaysa ma leh marka anigoo maaragtay ka danqanaya aaladahan casriga ah ama eray aqoomeedadan ku soo kordhaya sida xawliga ugu soo kordhaya afka Soomaaligu maaragtay dhaawacyada ay u geysanayaan af Soomaaliga yaa waxa maaragtay barnaamijkeena bal ku bilaabi lahaa suugaantayda gabay leedahay uubato gabaygaas wuxuu bilaamayaa sidan unkan gabay alifleyda hees iyo ereyga maansaad baa farayda nacay baryahan ablaableynteeda inkastoon albaabada u xiray un awday hadalkeeda inkastoon ayaamahan jeclaa inaan ilaa waaba ka adkaysan waayo mar kale ifiye delqaafi amuurta iyo goortiis la helay iyo hadal ujeedaada anigoon afduubayn murtida gabay abuurkeeda unugayga maansiya halkan wadha ku ekeeyay haddii aan abaaroon murtida gaadho ubuucdeeda ishu macalina urkuna janta afku yidhaahdaay haddii ururta reeraha dhex yaal ayda galaweynta dhulka oo awaariya lahaa oo masquululo xun abaar raagti iyo dadko oonka la asqoobay cirka oon idiimaha daruur lagu arkayn meel lamisa uuna raranta heegiya lahayn xay abuurtoona aruurtiina aan sagal ku dhigin onkadna ay yeedhin ama dhaxaa baaray ahayd oo unku wada seexday allabariga mooyin dadkoo aamus wada quustay ama dhaxaa baaray ahayd hadduu wadda kaga qaado adigoo warmooga haddaad oogta horsta toosto ardaayada uu waday xareed iyo aaga kugu xeeran halkii aad istaagtaba haddaad aragto daad jiifta ardaayadu waday xareed iyo aaga kugu xeeran farxad ku ahaatay haddaad ilaaleysaay adigoo isdhaadin leeray uu ka boodi aniguna gadaas oo hintii yeelataayga anigoo smoke baan ku yiri eraya suugaane gabay ilmo farxada gabay uubata xalay ma aabeeyay afarta aragti gabay lahaa hadal 50 deegan ujeedada duxdiga u buucda maansaadre gabaygu marka halka marayo yaa waxa uu madragtay tilmaamaya Soomaalidu waxa isku leedahay ba jira oo Soomaalidu dhan ka dhaxeeya waa maxay waxaasi waa afka dhaqanka iyo diinta maaragtay oo Soomaalidu dhan isku leedahay dhulka waa la kala leeyahay calaamada waa la kala leeyahay dawladnimada waa la kala leeyahay waxa la kala leeyahay ideology-ga ama fikradaha la kala leeyahay laakiin waxa Soomaalidu ku midaysan tahay oo ka dhaxeeya waa qowmiyadan halka dhaqan halka af leh marka geeyga Soomaaliyeed
tuulo intuu usoo mariyo gabaygan ayaa maaragtay wuxuu leeyahay dadka dhulka intaa leeg leh ee maaragtay intaasoo baaxada leh ee dadkiisu intaa leeyahay tiradiisu haddii afka Soomaaligood maanta meesha ka baxo aad iyo aad wax nasiib darro ah weeyaan markaas eegana ujeedada duxdiya u buuxda maansaad leh ubuqiya tajooriya sabiixiya agaga Jabuuti ood weyne Arabsiya iyo togdheer iyo awdal iyo saaxil iridaha nugaal iyo karkaar iyo aradkii Boosaaso afmadow Kismaayo iyo Jubiya koonfureedkeeda ijaabiya wajeeriya ilaa Gaarisa iyo Oodsan iridaha Liibaan iyo Hodheet iyo aradkii Mooyaale afdheer iyo Hargeysa ilaa Raasa iyo Aato ilaha Shabeelle iyo Goday iyo beledka Iimeeya agagaarka Dooliyo Wardheer iyo Ayda Daratoole qoraxay agteed iyo intuu eebba dhigay gaaska dhagax buur awaare iyo gurdumi iyo geesaska araarso sagag iyo onyood iyo ilaa nogo baslaaxdeeda afmeer iyo burqiya fiiq iyo baali idilkeeda aga faafan oo bariya jigjiga adari hoosteeda afdam iyo shiniiliya ay shiciya dusha eragoote adari iyo dir dhabiya awaash iyo aradka Soomaali ummadaha geyga inta leeg iyo arladan eebba kala geeyay tiro kuma idleen kara hadan eebba idhaahdaaye ummadaha ku nool iyo dadkan isir wadaagnow ergan idin ahay burmada iyo ubatiya qaylo wardoorsoonyay afkeenni hadaad ila arkaysaane dhaqankiina waa everlanaco ciida lagu aasiye waxaan eersanaa jiriya ay simiye yaabe casriga iyo aaladahan cusubina abaareeye ashaamud waa afkeenni ka dhiga u xusaaraaye eray bixin haddii aan loo samaynon aalad la macnayn eraygiyo haddii aan xarfaha weedha ku aroora asalkooda haddaan lagu salayn faracna loo eegin ubadkiyo haddii aan la barin jiilka imanaya asta lagu xasuusiyo qoraal ubadku raad raaco naxwo lagu arooriyo haddaan orinta sugaanta eraygii haddaan lagu ekayn eray dhawaaqiisa baloogow afkeenni Soomaaliya uunka laga waayay marka gabaygaas oo la yiraahdo uubato ayaan maaragtay yaa jira isaguna oo aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa sida fiican ee ugu soo bandhigtay bal marka la eego dhalinyarada hadda dhaqan iyo hiddi iyo waxaynu leenahay luuqad amaba se af Soomaali isagoo hodan ku ah eray bixinta bal maanta dhalinyarada iyo si isku yihiin dhaqankeennii aad iyo aad bay wallahi u liidataa sababtoo ah bari aan malaynayo inay ahayd ilaa 3 sano ka hor ama 4 sanadood ka hor yaa waxaan daawanayay TV-ga ESTV barnaamij uu ka soo duubay degmo ka mid ah gobolka Doolo barnaamijkaas waxa uu ku saabsanaa nin abwaana maaragtay barnaamijka waraysi yar laga qaaday ninka abwaanka waxa aan abwaaninta Soomaaliya xilligeedii jirtay iyo ka mid ahaa marka ninkaasi waxa la weydiiyay waxa uu horta sheegtay inuu fanka ka baxay maxaad fanka uga baxday buu yiri ninka wariyaha fanka maxaa ka saaray uga baxday buu yiri marka wuxuu yiri waxaan fanka uga baxay waxaan maaragtay moraal ka waayay dhalinyaradii xilligan anagu aanu ahayn suugaanyahanka aan wax soo bandhigi jirnay waxa naga hoos qaadi jiray dadka u faafin jiray waxay ahaayeen dhalinyarada ahaayeen marka wuxuu yiri maalmaha kamid ah anoo hotel fadhiya yaa waxa ii soo galay in yaro dhalinyaraha earphone dhagaha kula jira markaas wuxuu leeyahay wili hees buu qaadayaa heesta waxa uu leeyahay wili raisi ogbaaday oo heesta ilaahay ku soo celinaya markaas aan u yeeray wili waxaan ogaaday wiilkaas inuu raisi ogbaad toona garanayn asal laakiin iska dhageysanayo waana afkiisii hooyo markaas aan weydiiyay ku dhibida adar ma taqaanaa waxa la yiraahdo raisi iyo ogbaad markaas uu yiri wili waan aqaana Condoleezza Rice xogayaha muraad dibadda Mareykanka weeyaan marka xilliga la taagan yahay dhalinyaradu waa kuwa nidaamka ku salaysan weey halka taagan haddii anigu maanta aan iraado wiil aan weydiiyo maaragtay wax ku saabsan dhaqankeena ama maaragtay ku saabsan qofkaas yar dhalinyarada ama aniga ilaaga ama iga weyn waxa uu u arkay inuu yahay reer baadiye inuu yahay reer miyi qof reer miya waa dhibaatooyinka in haystay ka mid tahay marka dhalinyarta xilligan aad maaragtay ugu hooseeyaan oo ay maaragtay looga sii tagaya waxaan keentay baan u aaminsanahay xadaarada caalamka yalla jaan qaaditaankeeda oo aad loo rabo oo qof waliba uu ku daynayo qofka Mareykanka jooga qaabku u labisan yahay qaabku u dhaqmayo qaabku maaragtay u socdo nin walba isku dayo inuu dhaqmo maanso waxa jirta iyaduna kamida maansooyinka aad curisay waxa la yiraahdaa soo kabasho bal maansadaasi soo kabasho maxay ka hadlaysaa goormaad soo curisay maansada soo kabasho waxaan curiyay ama ay maaragtay soo baxday 2014 bishii labaad maansadani waa maanso ka hadlaysa sooyaalka taariikhda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya guud ahaan dalka Itoobiyaba maansadan waxaan hadda ka hor soo daawanay joornaalka midnimo la yiraahdo ee ka soo baxay xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya lagu soo daabacay marka maansadani waxa ay ka hadlaysaa sooyaalka taariikheed ee dalka Itoobiya xilliyadii hore la soo dhaafay khaasatan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maaragtay wixii dhib u soo maray waxa uu hadda ku sugan yahay halka uu hiigsanayo u socdo maansa ka sheekeynaysa
ayay ahayd marka maansadaas qofu horta markii guul la gaaro guusha cid baa ka dambaysa oo maaragtay cid baa keenta marka ciddii keentay ee sababta u ahayd ayaa aad maaragtay ay uga hadlaysaa oo ahdi waa la ogyahay oo ciddii maaragtay maanta nabadda iyo horumarka aan ku naaloonayna ciddii inoo keentay waa haliyeeyadeena maaragtay isugu jira maaragtay ciidamada iyo hogaamintaba marka maansada waxaa la yidhahdaa soo kabasho haddaan bilaabana waxay bilaabmaytaa sida noog baryahan bas sawdka iyo sadarkeedii maansada sidaan uga gaabsaday murti aan sameeyo suugaantii ma beegsado oo wax isaaqay mooyee waa bataan ka saahiday ha yeeshee sifaalaha adduunyadan silsilada hadba dhan usaqlaynta iyo saacadahan wareegtada waqtigiiyo wuxuu sido kama seexan weli oo wuxuu saacu laasimay oon hadalku seegayn iyo surun la beegsado oon sugayay baa jira waana saaka oo kale qofku marka uu suugaanyahan yahay maaha qofka inuu rimay gacmeed oo kale suugaanta ku tiriyo waa inuu iyadu ku timaado wax uu ka gabyo ama uu ka suugaaneeyo ama maaragtay ka maansoodo waa inuu qofku helaa markaasay u habboon tahay uu isagu yimaadaa shinkiisu markuu gala weeye ay suugaantu shinkeeda gasho markaasuu timaadaa suugaanta marka waana saako oo kale sababtii halbeegsiga anigoo aan u sahan tagin saldana la qaatiyo magacii siyaadiyo sadna aan ku doonayn waxa aan salaad hore siiriga u qaatiyo xaajadaan u sarakacay haddii aan saadaydiyo subciskayga meertada murti ugu sargooyoon ku cabira sifaalaha waatana sidaan idhi ilaa arag sokeeyo siniin iyo miniin iyo taariikhdeeni soo yaal sabanadii hore tagay dalkeenu Soomaaliya sama iyo wanaag iyo taariikhdii uu soo maray sadar qoran inay tahay diiwaankana ku sugan tahay caad nagama saarun inna taama seegana markaan saa ku leeyahay saydalada Itoobiya deegaanadan 9 aqoomiyadahan 8 Swift gumaystuhu qofna ma aysan seegina surmida la wada galay ha yeeshee Soomaalida surgin baa u dheereed iyo dabinkii Soomaaliya iyo sawirtii la marin jiray saqiirka iyo duqeytida waxa sababay taas oo dadka silac loo baday sinjid dhalashadoodii Soomaaliya holaalkii Soomaaliya holaalkii damaciisuna isna iska daba saqlayntii danihii Suuriya dabinkii loo dhigay sahal ugu dagaagii dhargiguna sidaas ay surin cuduriyaan Soomaalida Itoobiya sibaq ugu xareystaan si kasto ay ahaataba soo kabanay maanto wax bedelaysa yaagii dawlad sama ka taliso si fiican xaq soorkiisa sinaan iyo cadaalada saatirow Allah ayaa halkan soconna maantan soo noqod lahayne xisbigu soo noqod lahayne suxufiga adduunka iyo satellite ku qorayaan xisbiguna uu sabab yahay rabbigiina siiyo Allah noo siyaada dadkoo nabad ku seexda qof waliba sadkiisa sinaan iyo cadaal qof waliba sadkiisa sinaan iyo cadaalada surunkiisa ugu tagay saxa caafimaad iyo dugsi dhabarka lagu sido diceel biyaha sariya laami lagu sameeyo surimada deegaankaas ah loo helaya kuwa sidigta raaxo sadka iyo xaqoodii si kastaba u helay bada ayaa saraca beeraha saydashada wax soo saar surinkoodii ugu tagay saatir ma hadii weeye saatir Allah ayaa halkan socono maantan soo noqod lahayna suxufiga adduunka iyo satellite ku qorayaan xisbiguna uu sabab yahay rabbigiina siiyo Allah noo siyaada Allah noo siyaada si kasto ay ahaataba soo kabashadeenani sahal kuma imaanina geesiya u sarakacay dhiigoodana u saydo naftoodii u siibay saas miyaa la moogyahay dhiigoodii samawade ciidankeena guulside wiilasheena saaciiday geeyigeena suubane subaxda yimaadeen iyagoona seegin taba iyo siyaasado sirahoodii gaarka sida loogu tababaray axdigii dalkana sida sanadii hubkoodii socodkay bilaabeen sanadii hubkoodii saalbadlaha bareemkii iyo suugiya garnaylkii iyo soo dhiyeentay ablay dhabarkooda saarteen socodkay bilaabeen waatay surgooyeen sunuxuma cadaawaha ay naga sifeeyeen seelka iyo qoshaashtii iyo ubadiyo sunteedii ciidan yahowna saaciiday samawada inaad tahay caad nagama saaro amnigii adaa sugay maamul suuban iyo nabad adiga u sababo meey dhibaca sayliya suudiga dabaylaha saqaf laga galaa tahay dad salli lagu gamaayo dadku ku saaxidiyo kaba lagu socdaa tahay saaciye waxa tahay sareerada iyo khayrkii Soomaalida Itoobiya siric iyo rafaadkii dadku dhibku sacabku soo maray si ay uga dulqaadan lagu soo diraa tahay mar haday sidaa tahay liyu booli samawada ciidankeena guurside duca aan salaad hore subax ciir guduuda inta aan salaad galay subaxyada quraankana aan mariyay suurado aan saatirkay u tuugan ku iftiimin sawdka aamiinta igu suga saatirow Allah ayow liyu booli samawada salka loo adkeeyaa saatirow Allah ayow tafaraaruq saaqi isa sagaf garmaayo sanagsa ka dheere saatirow Allah ayow subaxu dagaal galo kuwii gacan sareeyo guushana iyagu sida waa sida aan u baranay ayaan sigan ahaadan saatirow Allah ayow xabadii ay saydaan sanbab cadawgeed ma seegtaan sanbabada abartoon sina looga soo kaban saatirow ka yeesha saatirow Allah ayow amar kala sareem iyo ixtiraam Soomaaliyeed sawrac looga yeelan halkaas uu ka xigtay maansada soo kabashana aad baad u mahadsan tahay gabaygiina soo kabashana intaas aynu kaga nimaadno waxaa jira gabay kale oo la yiraahdo haaka Allah bal gabaygaasi haaka Allah muxuu ka hadlayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay aboon waas gabayga haaka Allah waxa uu ka hadlayaa isbeddelka horumarneed ee ka jira dawladda Soomaalida Itoobiya sanadadii ugu dambeeyay marka gabayga waxa ilaaha haaka Allah ibo waxaan noo halgamay geesh
saad ogsoon tahayba waxaanu lahaan jirnay oon hogaamin maaragtay ka yimid oo shacabkeena hadda ka hor hogaamintaasi ma ayna ahayn kuwa iyagu 8 bilood ku dhashay kuwana ay 19 bilood ku dhasheen waxa uu ka maqnaa oo kaliya taa maaragtay isxilqaan iyo maaragtay hakrasho la'aan ta ay maanta tani la timid xukuumaddan hadda jirta ay la timid inta aan baa ka maqnayd marka hakrashadii ay nahagradeen sida ay noo hagradeen nimankii hore maaragtay in xukunka u dhiibanay ayuu ka sheekaynayaa sida ay satani noo daba qabatay ama maaragtay xukuumadda hadda jirta ay noo daba qabatay ayay iyadana ka hadlaysaa marka gabayga waxa la yiraahdaa ha kaalla isagu maadaama gabay yahay waxa u baahan yahay luuqdi gabayga in lagu qaado marka luuq ahaan baan maaragtay u qaadaya hadii la yiraahdo wuxuu bilaamayaa sida tan hoyaalayay 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 hoy allaheede hoyaalayay hoyaalayay hoy hadduu gabay anaaniyo laha horin iyo luuqba heelada karoon maanta wuu gabay halkiisiiye heesaha markii laga boqru segay heelinkiiye tuushko hantaa taacay sidii sabi hadaqaya hablihii buraanburi hayaan hoga tusmoodnaye anigoo sidaas uga hadhoodayay hadalkiiba shinkiisu hadduu gala amuu hanaqa soo jiro heegaanka gooya intaan hilinku beegaye halkaan caawa beegsaday balmaan hadalku miisaamo hilin baa la qaadaa haddaad howlu socotaye hilin baa la qaadaa markaad howlu socotaye himila la yeesha haddaad higsi damacdaye inaad horu dhaqaaqdiyo waxaa hadafba ku yeelaa halgan iyo ujeedda isla howlo hardama jeere marka haddaan halkaas gabayga aan macneeyo maahmaahba ku jirta Soomaalidu ay tiraahdaa halgan maaragtay aan ujeedda lahayn waa humaag maalmeed maaragtay aan idhaahday hiraal ama waxa fishinka loo yaqaano afka qalaad fishin aan lahayn halgan waa riya habeenaad halgan aan ujeedda lahayn waa humaag maalmeed bay Soomaalidu tiraahdaa marka waa inuu halgankaagu leeyahay ujeeddo aad ku wadid dad guusha gaari marka inaad horu dhaqaaqdiyo waxa hadafba ku yeelaa halgan iyo ujeedda isla howlo hardama jeere markaas hadalka tiigsatiyo horumar gaadhaye anigoon hareer marin murtidii horeyba loo sheegay anigoon hareer marin murtidii horeyba loo sheegay hiiliyo waxaa loo gala hobo ubadkaaga hooyo fiican goortaad heshaayadu hanataye hooyo fiican goortaad heshaayadu hanataye waxaan taa hareer dhigay haddaan hadalku miisamo waxaan taa hareer dhigay haddaan hadalku miisamo dalkaagoo hormuud loo xusha wada hoggaankiisa hadhowbaadu wayda wuxuu horumar keenaye bulshadana ninkii howlkara lagu halleeyaye hubka laguma aamino niman holaaca jidhayne hubka laguma aamino niman holaaca jidhayne hareeraha waxaa loo dayaa hadal dharartiya habeenkiina hoos loogu dhigay waa hanfada dide hoygaad gelaysaba haddaad hoodii odhan weydo waraar baad ka hadda kobaan kugu habboonayne hadal lama jeclayste haddaan hatu fidinsiiyo hadal lama jeclayste haddaan hatu fidinsiiyo halkaan shalay ahayn iyo koobtan maanta habanayno hilaada inoo muuqate hilayga loo qatay heerkoodu waa kala fogyahay hatan iyo tiye labadana rag baa wada hayo siday hoggaankiye hayeeshe nimankii hore noo hawan jirine iyagaana hodayo nabaday hagrashiyo ciile kanaan hayb wadaagna kanaan wada heshinada
kanaan hoos ka tuur leenaho way hagranayadaa kanaan hunguri qaybsanna kala hufaynadaa kanaan hoos ka tuur leenaho way hagranayadaa haraanka beentiyo dhaciyo shacab hanqarminta harawaajiyo mirqaan baan hayaa howlku fuulintooda horumarseeg dadkeennii la hadhay gaaja la huleelka nimankii waxaasnagu haye hoday degankeenna iyo maanta taanaysana kala hadhwayaane hakaa lahebo waxaanoo halgamay geesheen inagoo hanaan dowladnimo seegnay helinkeeda inagoo hanaan dowladnimo seegnay helinkeeda inagoo huguma baas qabno aynu himilalay inagoo hankeennii bajabayo halligan taagan xisbigeennu kala haadiyo xulay haldoorkiiye hoggaankii deegaankana waxaa loo igmaday hawsha hormudaacadeediyo raggii howlkarka ahaaye hormudaacadeediyo raggii howlkarka ahaaye haakalaybo waxaanoo halgamay geesheen guulahaan hadhayne xisbigu hadiyad noo siiyey halkan laguma koobe haddaan halalka soo qaato haqabeelka asaasigan la helay iyo harad reebka halkii aad istaagtaba biyahan heleeleeqlaynaya jidad how alamiyadan habkiyo quruxanaaned leh hormuudnimo aqoon iyo tacliin noqonay hoygeede haakalaybo waxaanoo halgamay geeshee gabaygaas halkaasuu kasii socdaa waa gabay aada u dheer maaragtay maasha allah run ahaantii wiil dhalinyaro ah oo maanse iyo gabay haddana luuq aada u qurux badan oo markaasi ku luuqeynaya gabayga aad baan kaaga mahad celinayaa kulley gebagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeenaanan taagannahay fursadda iyo wakhtigaada siisay waad ku mahadsan tahay iyadoo welibana xilli bishii barakaysneed ee rabadaan aynu ku jirno bal dhalinyarada lab iyo dhidigba wixii dardaaran iyo dhiirigelin aad u soo jeedinayso maadaama gabagabadii barnaamijkeena marayno fursadaan kuu siiyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay habboon waas dhalinyarada maaragtay dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya ku nool iyo dhalinyarta Soomaaliyeed meel kastaba ku nool maaragtay marka hore waxa aan fari lahaa qofku inuu aamino dhulkiisa qof waliba dhulkiisa ha aamino wadaha lagu daadanayaa maaragtay dhibaatooyin badan baa jirta marka dhulka ha la aaminaan oo ilaahay dhalinyarada waxa kale oo oran lahaa dhalinyartu maaragtay waa meesha kaliya tahay maaragtay afku uu ka tasqaado ama ka sameysmo ama dhaqankeenu maaragtay hadduu dhimanayna ka dhinto hadduu dhismayna ka dhismo marka dhalinyarada waxaan oran lahaa war dhaqankeena iyaan laga tegin afkeena iyaan laga tegin innaga cid aan ahayn male iminka markaan inagu ka tagna aynigan markaan ka tagno kuwa jiilkan dhali doona maaragtay naga dambeeyay waxay noqonayaan dad aan maaragtay aan de Soomaali ahayn Soomaalinimadana de muuqaalkeena guud iyo dharkan aan xidhanahay ma keenay waxa keenta afka qoomiyad waa maxay qoomiyad ama ummad marka la leeyahay waxa weeye waa inuu qofku leeyahay af iyo dhaqan u gaar ah labada dadka tagtina de maaragtay laguma garanayo dadka kale lagama garanayo marka waxaan oran lahaa inaan ka tagin inaan sawrac bedelmin marka saasan ku guwaabin la dhalinyarada waa hagaag aad baad u mahadsan tahay maxamed khaliif ibraahim xaraash kulley barnaamijkan adaa marti ku ahaa wax badanna waan kaa faa'iidnay waana kaaga mahad celinayaa bal bishan barakaysan ee rabadaan baynu ku guda jirnaa fursad baan ku siin lahaa ehel iyo asxaabba inaad bishan fadligeeda aad markaasi halkan uga salaanto iyo wixii fikraad markaas u gudbinayso aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan salaami lahaa marka ugu horeysa bal ummadda muslimiinta maaragtay ummadda muslimiinta caalamka meel kastoo ay ku nooshahay bisha barakaysan fadligeeda waxaan leeyahay rabadaan kariim ummadda Soomaaliyeedna si gaar ah maaragtay rabadaan kariim waxaan kaloon halkan ka salaamayaa dhammaan eheladayda meel kastoo ay caalamka ka joogaan anoon kala qaadi karin oo halkan ku soo dhameyn karin meel kastoo ay dunida ka joogaanba waxaan ku salaamayaa bisha barakaysan rabadaan kariim aan leeyahay waxaan salaamayaa maaragtay asxaabtayda oo aanan maaragtay dhameyn karin yaa salaamaya oo aan hebel iyo hebel odhan karin waxa kaloon salaamayaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya majaraha haysa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya iyo hogaamintiisa
telefishinka caalamiga ah maaragtay horumarka deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo maaragtay horumarinta annagu waxaan wadnay dadaalkanaga qayb libaax la ka qaatay isagana maaragtay shaqaalihiisa iyo madaxdiisa aad baan maaragtay iyagana halkan uga salaamaya waad mahadsantahay aad iyo aad baan salaamay waa hagaag gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeennan iyaynu maraynaa aad baad u mahadsantahay maxamed khaliif ibraahim oo ku magac dheer xaraash isla markaasina wiil dhalinyaro ah haddana hal abuur iyo weliba markaasi suugaano kala duwan iyo gabayo markaasi halkan inooga soo jeediyey fursadda iyo waqtiga uuna siiyey waan uga mahad celinaynaa inta barnaamijkan mid lamid aan ku kulmi doono waa Bahdi TV-ga Soomaalida Itoobiya isku duubnida leh Rabadaan Kariim